wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa waxaa mar kale uu ka hadlay habka ay ugu diyaar garoobeen laamaha amniga dalka sugidda ammaanka guud ee Jamhuuriyadda Kenya inta doorashooyinka lagu guda jiro, isagoo xaqiijiyay in iminka dhammaan ciidamada ay u diyaarsan yihiin xaqiijinta ammaanka islamarkaana ay shacabka uga baahan yihiin in kaalin weyn ay ka qaataan dhankooda sugidda amniga, lana soo sheego cid kasta oo qalqal gelinaysa xasiloonida guud ee dalka. Mr. Matiang'i ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah xilligan ay u leedahay guud ahaanba Kenyaanka in wax qalalaasa doorashada aysan sababin, isagoo farta ku fiiqay siyaasiyiinta in si gaar ahaaneed iyaga looga baahan yahay xasiloonida dalka oo laga shaqeeyo iyo shacabka oo aan la kala dilin midnimadoodana si weyn loo taageero. Fred Matiang'i oo dhowr jeer oo hore xaqiijiyay in ciidamada amniga si isku mid ah ay ammaanka u sugi doonaan deegaanada ay macquulka tahay in xilligaas doorashada ay dhacayso ay rabshado ka dhacaanna ciidamo dheeraad ah la geyn doono, ayaa yiri weli ciidamadu waa ay diyaarsan yihiin. Wakaaladaha ammaanka mar walba waxa ay ka jawaabi doonaan baahi kasta oo sugidda ammaanka la xiriirta. Cidna dhibaato looma geysan doono, balse cidna lagama ogolaan doono, ayuu yiri, inay qalqal geliso guud ahaanba xaaladda nabadgelyada dalka. Doorashooyinka nagu soo aadan ayaa waxa ay yihiin kuwo xasaasi ah, islamarkaana ay ku loolamayaan siyaasiyiin kala duwan oo horaan xilal kala duwan soo qabtay iyo kuwo iminka ku cusub siyaasadda oo doonaya in xilal ay qabtaan. Dhammaanna waxa ay yihiin kuwo doonaya taageerayaashooda inay garab ka helaan, iyadoo dowladda ay culays ka saarayso in haba yaraatee siyaasiga aan laga ogolaan in uu kicin dadweyne sameeyo islamarkaana uu kala dilo Kenyaanka.